Saakayto sidaad ogtihiin waxaan meeshaan ku qabanaynaa tababar capacity building oo loogu talagalay shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta khaasatan Department of Engineering-ka iyo kambaniyada contractyada qaata construction companies-ka loo yaqaano. Tababarka hore u soo dhacay bilihii la soo dhaafay uu socday saakayta ayuuna mar labaad dib u furmay tababarkii bishaan la qaban lahaa. Waxaa fangareeyo oo barnaamijka naga caawiyo hay'adda GIZ Jarmalka laga leeyahay oo shaqooyin badan ka wado state-kan. Tababarka waxaa bixinayo injineero ka tirsan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Waxaa sidoo kaleeto barnaamijka ku jiro in khibradaha la isweydaarsado caqabadaha ay la kulmaan kambaniyada ka shaqeeya state-kan dhismayaasha ku jiro ay kala kulmaan xagga dowladda iyo wasaaradda ay mainly partnership ay leeyihiin iyo wasaaradda laftirkeeda caqabadaha ay kala kulanto kambaniyada construction-ka iyo sidoo kaleeto hay-adaha partnership-ka nale ama partners-ka ee ka shaqeeyo state-kan caqabadaha ay kala kulmaan kambaniyada. Sidoo kaleeto tababarka waxa uu focus gareynaya ama diiradda saaraya sidii tababarka loo fidinayo kambaniyada construction-ka loo waafajin lahaa standardada caalamka u degan ee kambaniyada construction-ka ay ku shaqeeyaan. Sida tusaale ahaan kambanigu marka uu ku guuleysto construction yani bidding documents-ka shuruudaha iyo wixii uu marayay looga caawin lahaa. Sidoo kaleeto kambaniga markuu ku guuleysto oo site-ka uu tago waxyaabooyinka safety-ga la yiraahdo mataqaanaa sida helmadyada iyo protection-ka iyo waxyaabooyinka kaleeto kambaniga looga advice gareyn lahaa qaabkay u sameyn lahaayeen. Sidoo kaleeto kambaniga markii uu hawsha dhameeyo wasaaraddu waxay ku leedahay monitor and evaluation wax la yiraahdo sida wasaaradda ay ugu soo report celin lahaayeen. Marka waa meeting get together oo experience-ga la isku weydaarsanayo oo caqabadaha jiran iyo challenges-ka looga wada discuss gareynayo oo cabashooyinka ay ku soo gudbinayaan oo wasaaradda laftirkeeda caqabad ka jira ay kula wadaagayso oo facilitate gareynayo in la helo wada shaqeyn ka dhaxayso wada shaqeyn saddex geesood oo ka dhaxayso wasaaradda kambaniyada iyo hay-adaha fanka mataqaana ay soo maraan inta badan ama fanka bixiyo mataqaana wax awaad gareeyo ee contractyada siiyo. Marka waxaan rajeynaynaa coordination-nada noocan oo kaleeta ama meeting-nada noocan oo kaleeta inay kor u qaadaan wada shaqeynta saddex geesoodka mataqaana hay-adaha caqabadooda ay ku soo gudbinayaan kambaniyada caqabadooda ay ku soo gudbinayaan wasaaradda laftirkeeda ay ku gudbinaysa challenges-kaas saddex geesoodka xal loogu raadinayo. Waxaan rajeynaynaa marka mustaqbalka soo socdo wada shaqeyntaas inaan kor u qaadno kambaniyada construction-ka ee wasaaradda ay ku xirnaadaan hay-adaha laftirkooda wasaaradda ay ku xirnaadaan wasaaraddu laftirkeeda caqabadka jira ee la xalliso. Sidoo kaleeto kambanigii meeshaan waxyaabooyin sharciyada aan waafaqsanayn ka sameeya kambaniyo badan waxaa jira ayagoon sharciyeysnayn iska bilaaba dhismayaal ama kambaniyo sharciyeysan ee si qaldan oo la dhaqmo hay-adaha fanka bixinaya. Marka waxaan digniin ku siinaynaa kambaniyada construction-ka ee ka shaqeeya magaalada Kismaayo iyo guud ahaan state-kan in wasaaradda haddayba mar soo mareen oo iska diiwaan geliyeen xogtooda oo dhammaystiran lahayo anytime-na khaladka ay sameeyaan lagula xiriiri karaayo oo mataqaanaa lagu ciqaabi karaayo. Kambaniyo badan waxaan ognahay hay-ado mataqaanaa fan ku bixiyay si qaldan oo la dhaqmay. Kambaniyo badan waxaan ognahay inta wax ku guuleystay si been ayagoon waxba dhisin sawirro been inta qaateen saxiiyo been helay hadhow kaleetana ku sheekeynaya inay shaqo qabteen oysan jirinna in reality wax shaqo ah ay qabtaan. Marka kambaniyadaas oo kale in blacklist la gelinayo lagula xisaabtamayo. Kambaniyo sidoo kale waxaa jiro shahaadooyin khalad inta iska samaystay ku shaqeysanayo oo saxiixyadii ku been abuuranaya ama fake sameynaya. Kambaniyadaas waxaan sheegaynaa inaan blacklist gelin doono oo wasaaradda iyo hay-adaha mar dambe aysan dhici doonin in shaqooyin dib loo siiyo. Marka waxaan rajeynaynaa wada shaqeyn wacan tababarkan muddiisa u socon doona tababarro kala imaan doona. Hadda midkaan waxaan kaga hadlaynaa capacity building waayo oo capacity-ga ama tayada kambaniyada aan kor ugu soo qaadayno. Waxaa jiri doona mid kaleeto oo la yiraahdo infrastructure coordination meeting oo hay-adaha ay ku casuuman yihiin oo ka soo qayb galaan laftirkooda waxay nala wadaagi doonaan caqabadaha haysto. Marka aad baad u mahadsantihiin waxaan rajeynaynaa shirarkan inay sii socon doonaan inay guuleysan doonaan.